ka hadlo dhalinyarada arkay reer Booramo aniga iga cabanaysa waxa way hortaanu in badan baan ka hadlay in dalkan lagu wado cadaalad iyo fair lagu wado dalkan waxa jira dad mujtamac aan xitaa codkooda la maqal baa jira oo aan iskeel kuba qaban oo ah magaranaysa dadka jooga oo sanaag badan ku abuuran gooyaha jira dalka waa loo siman yahay in badan baan ka hadlay in wadankan halo si cadaalada loo qaybsado awoodda dalka iyo magaranaysa iyo dhaqaalahaba arinta Boorame khaasiyan inta jirankii ergeeyay marka odayaasha farmanaanta la diray waa la og yahay laba jeer inuu madaxweynaha kala hadlay arintan maalinka Boorame maalinta uu la xidhiidhayna madaxweyne ku-xigeenka joogo iyo silka daaqliga waxay la socday ninka Awaal Bistoole laba jeer baan kala hadlay in arinta la joojiyo in la sii daayo odayaasha waliba aan markay soo daana casuumiya laakiin waxa weey waxa la yiri walaalka haduu qaldan yahay wiili haduu laga gardan wiili in wixii labada dhinac wixii qalad ku jira la sheegaa waa xaq weeye waxaan jeclahay in debate furna oo isku imanayna aan min gabadamay wixii aan ka gardan waa shay wax ugu gardan fartan ka saaraya ila jaamacada Amudan jeclayn debate ka furno on dialogue